السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada janalka Qaalin Media. haddaad tahay daawado cusub rukumo kanaalka oo subscribe-ta ku dhufo. haddii aad hore ugu jirtana like-ta iyo comment iyo share-ka la dhac. intaa kadib waxaan gudbeynaa maanta khudbad xasaasi ah oo aan jeclayn in aan soo tobino. khudbadaas oo uu jeedinayay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden Mars 16 bay ahayd 2022. waxaan khudbadan aan u soo celinayaa maadaama ahmiyad weyn ay leedahay inaad la socotaan ay muhiim tahay. waxay khudbadan ka dhacaysay howlka maxkamadda koonfur dhismaha xafiiska fulinta Eisenhower. waxay ahayd abaarihii 1 duhurnimo ama 7 saac ee duhurnimo. hadaan u gudbo hadalkii madaxweynaha. galab wanaagsan. waxaan rabaa in aan ku bilaabo mahadnaqa madaxweyne Zelensky fariintiisa xiisaha leh ee saaka. waxaan ka dhageystay guriga gaarka ah wuuna igu qanciyay iyo hadal muhiim ah uu ku hadlay. waxa uu u hadlaa dadka muujiyay geesinimo iyo xoog cajiib ah oo ku wajahan gardarada arxandarada ah. geesinimada iyo xooga taas oo dhiirigelisay maaha kaliya Ukrainiyiinta laakiin adduunka oo idil. Putin waxa uu geysanayaa wax laga naxo, burbur aad u xun iyo argagax ku dhaca Ukraine. bambooyinka guryaha dabaqyada ah iyo qolalka dhalmada iyo isbitaalada burburiya. waxaan ula jeedaa waa ilaah aad u xun. waxa aan arintan kala hadlay taliyahayga oo iga dambeeya General Milley. waxaan ula jeedaa yaab. shalay waxaan aragnay warbixin sheegaya in ciidamada Ruushka ay ku hayaan boqolaal dhaqaatiir iyo bukaan isbitaalka ugu weyn ee Mariupol. taasina waa xasuuq. waxay caro ka tahay dunidana waxay ku midaysan tahay taageeradeeda Ukraine iyo go'aankeena ah in Putin uu bixiyo qiimo aad u culus. Mareykanku waxa uu hogaaminayaa dadaalkan iyada oo ay nawhelinayaan xulafadayada iyo howlgalayaasheena. waxa ay bixinayaan heerar aad u culus oo amni iyo gargaar bini'aadanimo ah oo aan ku kordhinayno maanta. waxaanan sii wadi doonaa in aan wax badan qabano maalmaha iyo toddobaadyada soo socda. waxaan ku curyaaminaynaa dhaqdhaqaaqa Putin. ciqaabta cunqabateynta oo kaliya sii kori doonta xanuun badan waqti kadib. dhammaan NATO iyo EU-da ayaa naga dambeeya iyo dalal kale oo badan. waxaa halkan isku haya waa mabaadi'da ee Mareykanka iyo qurumaha midoobay ee adduunka u taagan yihiin. waxay ku saabsan tahay xorriyadda. waxay ku saabsan tahay xaqa ee dadku u leeyihiin inay go'aansadaan mustaqbalkooda ama masiirkooda. waxay ku saabsan tahay in la hubiyo in Ukraine weligeed guul u noqon doonin Putin iyada oo aan loo eegin wax kasta oo horumar ah oo uu ka sameeyo goobta dagaalka. dadka Mareykanka ayaa ka jawaabaya baaqa madaxweyne Zelensky ee ku aadan caawinaad dheeri ah, hub badan oo Ukraine ay isku difaacdo, qalab badan oo lagula dagaalamo gardarada Ruushka. taasna waa waxa aan sameynayno. ahaantii waxaanu bilownay caawinteeda Ukraine ka hor inta uusan bilaabmin dagaalkan, maadaama ay bilaabeen inay ku sameeyaan jimicsi xuduudaha Ukraine Ruushka laga bilaabay March ee sanadkii hore. waxaan si dhab ah u qaadanay hanjabaadii Putin ee ku soo duulay, waana ka falcelinay. waxaanu Ukraine u dirnay kaalmo amni oo dheeraad ah sanadkii hore $650 milyan oo hub ah oo ay ku jiraan qalabka
hubka hawada iyo kuwa ka hortaga hubka ka hor duulaankii ka badan intii aynu weligeena bixin jirnay in ka badan intii aynu weligeena bixin jirnay. Haddaba markii duulaanku bilowday, waxaa horay gacantooda ugu haysteen noocyada hubka ay u baahan yihiin si ay uga hortagaan horumarka Ruushka. Oo markii uu dagaalka bilaabmay, waxaanu isla markiiba ku degdegnay $350 milyan oo gargaar dheeri ah si aan wax uga qabano baahiyahooda. Boqolaal ka mid ah nidaamyada hawada, kumanaan hubka lidka taangiyada ah, helikabtarada qaada doonyaha ilaalada hubeysan iyo baabuurta kale ee dhaqdhaqaaqa sare leh, iyo nidaamyada raadaarka, kuwaas oo gacan ka geystay la socodka madaafiicda soo galaya iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Qalabka isgaarsiinta ee sugan iyo qalabka taatikada, sawirka dayax-gacmeedka iyo awoodda falanqaynta, waxaynu si cad u caawinay Ukraine in ay khasaare weyn u geystaan ciidamada Ruushka. Sabtidii, maamulkeygii wuxuu oggolaaday $200 milyan oo kale si loo ilaaliyo qulqulka hubka iyo rasaasta u socda Ukraine. Hadda waxaan mar kale isticmaalayaa awoodeyda madaxweynenimo si aan u dhaqaajiyo kaalmo amni oo dheeri ah si aan u sii wado ka caawinta Ukraine inay iska difaacaan weerarka Ruushka. 800 oo dheeraad ah oo gargaar ah. Taasi waxay wadarta guud ee kaalmada amniga ee Mareykanka ee cusub ee Ukraine ka dhigaysaa $1 bilyan oo kaliya toddobaadkan. Kuwani waa wareejinta tooska ah ee qalabka laga helo waaxda difaaca ee loogu talagalay militariga Ukrainian-ka si ay u caawiyaan marka ay la dagaalamayaan duulaanka. Waxaanan uga mahadcelinaynaa Koongareeska oo qoondeeyay lacagahan. Xirmada cusub ayaa iskeed u socota si ay u bixiso kaalmo aan hore loo arag Ukraine. Waxaa ka mid ah 800 oo hababka lidka diyaaradaha si loo hubiyo in militariga Ukraine ay sii wadi karaan joojinta diyaaradaha iyo helikabtarada kuwaas oo weeraray dadkooda iyo inay difaacaan hawadooda Ukraine. Iyo codsigii madaxweyne Zelensky, waxaanu aqoonsanay oo aanu ka caawinay Ukraine inay hesho habab dheeraad ah oo ka hortagaya diyaaradaha iyo hubka nidaamyadaas. Xirmadayada gargaarka cusub waxaa kale oo ka mid ah 9,000 oo ah hababka ka hortagaya hubka. Kuwani waa kuwo la qaadi karo, kuwo sarsare ah oo sax ah, gantaalada garbaha ku rakiban oo ay ciidamada Ukrainiyaanku ay u adeegsanayaan saameyn weyn si ay u burburiyaan taangiyada soo duulay iyo baabuurta gaashaaman. Waxaa ka mid noqon doona 7,000 oo hub ah, qoryaha darandooriga u dhaca, bam-gacmeedyada si loo qalabeeyo dadka reer Ukraine oo ay ku jiraan haweenka geesiyaasha ah iyo ragga, kuwaas oo u difaacaya magaalooyinkooda rayid ahaan. Waxayna sidoo kale ku sugan yihiin baadiyaha. Anaguna waxaan nahay iyo sidoo kale rasaasta, madaafiicda in aan u raacino hub fudud 20 milyan oo wareeg ah. 20 milyan oo wareeg ah oo tan waxaa ku jira doona diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, taas oo muujinaysa sida ay nooga go'an tahay in aan u dirno hababkayaga ugu cidhiidhiga ah ee Ukraine difaaceeda. Taasna ma sameyneyno kaliyaga
xulufadeeda iyo la howlgalayaasheena waxay u kaceen inay bixiyaan shixnado muhiim ah oo gargaarka amniga ah, waxayna sii wadi doonaan inay gacan ka geystaan fududeynta gaarsiinta. Sidoo kale Mareykanka iyo xulafadiisa iyo howlgalayaasheena waxay si buuxda ugu go'an in ay kor u qaadaan habka gargaarka Ukraine. Wax badan ayaa iman doona marka aan ka helno kaydka dheeri ah oo qalab ah, kuwaas oo aan diyaar u nahay inaan wareejino. Hadda waxaan rabaa inaan daacad u hadlo. Tani waxay noqon kartaa dagaal dheer oo adag, laakiin dadka Mareykanka waxay ku adkeysan doonaan taageeridayada dadka reer Ukraine ee ka dhanka ah Putin ee anshax xumada weerarada anshax darada ah ee dadka rayidka ah ku wada. Waxaan ku mideysanahay nacaybka aan u qabno weerarada guracan ee Putin, waxaanan sii wadi doonaa inaan dhabarkooda haysano marka ay u halgamayaan xorriyadooda, dimuqraadiyaddooda iyo badbaadadooda. Oo waxaanu siin doonaa Ukraine hubka si ay ula dagaalamaan oo ay isugu difaacaan dhammaan maalmaha adag ee soo socda. Waxaan sii wadi doonaa abaabulidda gargaarka bini'aadanimo si aan u taageerno dadka gudaha Ukraine iyo kuwa lagu qasbay inay ka cararaan Ukraine. Dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay waxaan bixinay 300 milyan oo gargaar bini'aadanimo dadka ku nool Ukraine iyo dalalka la deriska ah, 10,000 oo tan cunto, biyo, daawo ah iyo sahay kale oo aasaasi ah si loogu taageero dadka u baahan. Khubaradayada ku sugan Poland iyo Moldova iyo wadamada kale ee deriska ah waxay halkaasi u joogaan inay sameeyaan qiimeyn dhab ah oo ku saabsan dhibaatada degdega ah ee sii kordhaysa iyo inay helaan sahay bini'aadanimo oo degdeg ah oo loo baahan yahay dadka u baahan marka ay u baahan yihiin. Oo waxaan ku taageeri doonaa dhaqaalaha Ukraine kaalmo dhaqaale oo toos ah. Sidoo kale anagoo kaashanayna xulafadayada iyo howlgalayaasheena waxaan sii wadi doonaa cadaadiska dhaqaalaha burburiye ee Putin, isaga oo go'doomin doona masraxa caalamiga ah. Taasi waa yoolkeena: ka dhig Putin inuu bixiyo qiimaha daciifiyo booskiisa, isagoo xoojinaya gacanta Ukraine ee goobta dagaalka iyo miiska wada xaajoodka. Si wada jir ah, xulafadayada iyo howlgalayaasheena waxaanu sii wadi doonaa koorsada. Waxaan sameyn doonaa wax walba oo aan awoodno si aan u riixno oo aan u joojino dagaalkan naxdinta leh ee aan loo baahnayn. Kani waa halgan ka hor imaanaya rabitaanka bini'aadanka ah ee aan inay xoroobaan oo yaanay shaki ku jirin. Hubaal la'aan, su'aal la'aan, Ameerika waxay la taagan tahay xoogagga xorriyadda. Had iyo jeer waan haysanaa, mar walbana waan sameynaa. Waxaan rabaa inaan dhammaantiin u mahadcelisiin. Ilaahayna ha ku barakeeyo. Oo hadda waan sii socon doonaa oo aan saxiixi doonaa sharci dejintan saxiixa sharcigan si aan uga ogolaado soo saarista agabkaasi. Ilaahayna ha xafido dhalinyarada reer Ukraine ee u taagan difaaca dalkooda. Waxa aan halkan ku saxiixayo waa ergada maamulka ee hoos timaada qeybta 506(1) ee xeerka kaalmada dibadda ee 1961. Waxaa loo turjumay Ingiriis cad. Wadar ahaan waa 800 milyan oo ah
maqaalada difaaca wakiilada maamulka waa la saxiixay. mudana madaxweyne, maxay kugu qaadanaysaa inaad soo dirto miigiyada boolishka ee uu madaxweyne Zelensky weydiistay? Madaxweyne hadda kama faalloon doono taas. Ka hadli maayo waa wax aan ahayn waxa aan ku sheegay aan la maqli karin. Mahadsanidin. He talked about anti-aircraft systems